بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن وعن داود يالكان وكاه ورركا سو دوادا qodobada idin hayno kuwada ugu waaweyn maanta way tahay maalinimo khamiis ah 22 bisha 7 July sanada 2021 khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay maamulka Hirshabeelle iyo madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ku wajahan degmada Cadale xilli Cali Guudlaawe uu shalay halkaasi gaaray رئيس الوزراء روبلي oo sheegay in doorashada ay caqabad ku yihiin dad uu ku tilmaamay wax magaratayaal maamulka galmudug oo sheegay inay isku soo dhiibeen dagaalamayaal ka tirsan ururka nabadiidka ah ee al-shabaab galmudug oo faahfaahin ka bixisay howlgallo toddobaadii la soo dhaafay ciidamada ammaanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulkaasi galmudug ay ka wadeen deegaano dhaca koonfurta galmudug iyo dagaaladii ka qarxay dalka Itoobiya oo lagu hoobtay markale ismaqal wanaagsan ayaad leenahay daawadayaal waxaan ka codsanayaa hadii ay tahay markii ugu horeysay aad ina soo booqato inaad ka wararka subscribe inoo saarto muuqaalkaana aad like saarto share dhahdo si xogahan baahinay u gaaraan bulsho badan oo Soomaaliyeed kuwa oo raba in xogaheena ay si maalinle ah u helaan aynu ku bilownay daawadayaal ayadoo shalay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe uu gaaray degmada Cadale gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta iyo bulshada degmada sida markaas aan xogta ku helnay safarka Cali Guudlaawe ayaa degmada Cadale markaas waxa uu hordhac u ahaa safar maanta halkaas ay ku tagi doonaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh iyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed sababta ay madaxweynayaashii hore ay tagayaan Cadale ayaa waxa lagu sheegay inay xal u raadinayaan muran xoogan oo ka taagan kursiga xildhibaan oo markaas ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kaas oo kamid ah kuraasta beesha Harti Abgaal kursiga muranka ka taagan yahay ayaa ah midka hob 141 waxaana hadda ku fadhiya wasiirka hore ee amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ka soo jeeda beesha Abuubakar Gaabane ee Harti Abgaal si kastaba kursigan ayaa waxa markaas sheeganaya beelaha Cabdalla Caroone iyo Habar Nugaale Caroone oo sheegaya in beesha Abuubakar aysan xaq u lahayn kursigan ayna tahay in lagu soo wareejiyo beelaha kursiga sheeganaya ayaa waxay markaas eedeynayaan Shariif Sheikh Ahmed iyo imaamka Mudulood Imaam Maxamed Yuusuf oo sheegayeen inay siiyeen beel aan xaq u lahayn ayna tahay in laga soo celiyo beelahaasi Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa lagu waramayaa inay doonayaan in xal arintan ay ka gaaraan sidaasina ay degmada Cadale gobolka Shabeellaha Dhexe ay u gaarayaan maanta isla markaana halkaas ay kula soo kulmayaan bulshada qaybahooda kala duwan halkaas ku sugan si xal loogu helo kursiga muranka uu ka taagan yahay beelaha qaar maamulada dalka markaas waa beelaha qaar ee degmada Cadale iyo agagaarkeedaba ay dood badan ay ka keeneen dhanka kale daawadayaal ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu jeediyay khudbad uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo dib u heshiisiinta gobolka Gadow waxa uu ka hadlay ama uu soo hadal qaaday khilaafka salka ku hayay doorashada ee u dhaxeeya siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay inuu wada tashiyo ku aadan arrinta Soomaaliland isla markaana meel fiican ay marayaan wada hadalladu waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan markaas warbixin ka siiyo arrinta Soomaaliland meel fiican ay maraysaa wada hadallo ayaa noo socda siyaasiyiinta arrinta Soomaaliland aniga ayaa la xil saaray sida ku cad heshiiseedii laga gaaray doorashada xal ayaa laga gaarayaa anigoo la tashanaya gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare Mahdi Maxamed Guuleed ayuu markaas waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo khudbad jeedinayay khilaaf xun ayaa ka taagan doorashada gudoonka xubnaha guddiga ee maamuli doona doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka ka soo galaya Soomaaliland waxayna haatan 12 xubnood ee guddigaasi u kala markaas jabeen laba garab iyagoo kala doortay laba gudoon iyo ku xigeenadooda doorashada waa guddiga doorashada kuraasta Soomaaliland ayaa u kala jabay 7 xubnood oo taabacsan siyaasiyiinta uu hogaaminayo Mahdi Guuleed iyo 4 xubnood oo taabacsan garabka kale ee uu hogaaminayo Cabdi Xaashi Cabdullaahi 17 bishan qoraal ay soo saareen xildhibaanada gobolada waqooyi garabka taabacsan gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa ra'iisul wasaare Roble loogu jeediyay eedayn ah inuu ku guuldareystay inuu ficil ahaan uga dhabeeyo ballanqaadyadii uu sameeyay iyo waa markaas gudashada mas'uuliyadii markaas lagu aaminay iyo gudashada mas'uuliyadii lagu aaminay waa mas'uuliyadii lagu aaminay ee habsami u socodka howlaha doorashooyinka qaranka iyo tan xildhibaanada labada gole ee maamulka Soomaaliland inay u dhacdo si xor iyo xalaal ah marka uu dhigayo heshiiskii 27 May waxa mas'uuliyadda xalinta khilaafka taagan iyo isku duwaridka habsami u socodka doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliland loo xil saaray ra'iisul wasaaraha waxaanu filaynay in ra'iisul wasaaruhu arrintaasi si degdeg ah uu u gudageli doono oo isugu yeedhi doono
gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka si looga wada arinsado xalinta khilaafka iyo turxaan bixinta hanaanka doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliland laakiin nasiib darro taasi ma dhicin ilaa maanta oo ka soo wareegatay bil iyo 20 cisho ayaa lagu yiri war saxaafadeed xilligaas ka soo baxay siyaasiyiinta gobolada waqooyi garabka Cabdi Xaashi Cabdullaahi qodobo dhowr ah kana kooban 6 qodob ay guddiga xalinta khilaafaadka gobolka Gado u soo jeediyeen ra'iisul wasaare Roble oo khudbadahan ka sheegay kadib markii uu warbixintaasi guddiga uu kala markaasi uu ka gudoomayay waxaana qodobadaasi guddiga xalinta khilaafaadka gobolka Gado ay soo jeediyeen kamid ahaa in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu soo saaro wareegto uu ku amrayo dhammaan ciddii ay qusayso gaar ahaan laanta socdaalka hay'adda duulista hawada iyo hay'adaha nabad sugidda ee ka howlgala garoomada diyaaradaha dalka gaar ahaan kuwa ka howlgala garoonka Aadan Cadde iyo kan Kismaayo in aan muwaadin aan maxkamad dambi ku soo oogin aan sabab aragti siyaasadeed darteed looga xakamin markaasi xanibi karin socdaalkiisa guud ahaan dalka gaar ahaan in la fasaxo diyaaradaha iyo muwaadiniinta u kala safraya Muqdisho Garbaharey Kismaayo Garbaharey iyo Kismaayo isla wareegtadaasi uu ra'iisul wasaaruhu ku soo saaro si waafaqsan heshiiska 27 May 2022 aysan ciidamada kala duwan wax faragelin ah ku sameyn karin siyaasadda iyo amniga doorashada dalka marka laga reebo hay'adaha amniga ee loo xilsaaray fulinta qorshaha amniga doorashada Garbaharey waxa loo marayaa si waafaqsan soo jeedintii Baydhabo iyo heshiiskii 27 May 2022 ee golaha wada tashiga qaranka in guddiga doorashada Jubbaland uu soo gudbiyo jadwalka markaasi goorta ay tagayaan Garbaharey iyo la bilaabayo doorashada kuraasta 16 ka ah waxaana kala soo jeedinaynaa in la tixgeliyo codsiga bulshada Garbaharey ee ah in lagu bilaabo markaasi waxaana kala soo jeedinaynaa in la tixgeliyo codsiga beelaha Garbaharey ee ah in la bilaabo doorashada magaalada Garbaharey in ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan aaga Garbaharey ay xoojiyaan amniga guud ee degmadaas si looga ilaaliyo in argagixisadu ay soo farageliso habsami u socodka amniga doorashada Garbaharey in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo golaha wada tashiga qaranka ay si joogto ah uga wada tashadaan xaaladda amni iyo siyaasadeed ee qabsoomida doorashada gobolka si loo hubiyo habsami u socodka doorashada iyo hirgelinta dhammaan heshiisyada fududeynaya xasiloonida iyo nabad ku doorashada kuraasta taala Garbaharey ee 16 ka ah ugu dambeyntii waxaan soo jeedinaynaa ay guddiga xalinta khilaafaadka gobolka Gado ku sheegeen in magaalada Garbaharey laga hirgeliyo mashaariic horumarineed oo degdeg ah si ay qayb uga qaadato soo kabashada kalsoonida bulshada ee dhanka dawladnimada mashaariicda horumarinta leh waxa kamid ah in la hagaajiyo biyaha magaalada dhismaha garoonka kubadda cagta in la dhiso suuq dadka ka dhaxeeya in la hagaajiyo jidadka magaalada in meel ku habboon laga hirgeliyo garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharey iyo in mashaariic kale oo horumarineed oo dhinac ay ahaataba ay u sameeyso dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo kaashanayso hay'adaha caalamiga ah daawadayaal wali waxa daawanaysaa marka subaxnimo ee ka wararka waxaan ka codsanaynaa haddii aad markii kugu horeysay ay soo booqato aad subscribe inoo saarto ka wararka sidoo kalena muuqaalka aad like saarto share dhahdo si xogaha aan baahino ay u gaaraan bulshada badan ee Soomaaliyeed dhinaca kalena madaxtooyada maamulka Galmudug ayaa waxa ay war saxaafadeed soo saartay kaga warantay ama hadal ay kaga soo saartay howlgaladii ka socday deegaanada Mudug todobaadkii la soo dhaafay iyo dagaalka dhexmaray ciidamada dawladda iyo kuwa Galmudug oo isku dhinac ah iyo al-shabaab war saxaafadeedka ayaa waxa lagu sheegay in guul laga soo hooyay isla markaana ciidamada ammaanka Galmudug oo kaashanaya kuwa xoogga dalka ayaa markaasi guluf dagaal waxa ay ku qaadeen al-shabaab ayaa lagu yiri iyagoo ka saaray deegaano iyo tuulooyin dhowr ah howlgalada ayaa ahaa kuwa guul laga gaaray si aan uga xureynay al-shabaab saldhigyo muhiim ah 20 bishan luuliyo duqeyn diyaaradeed ayaa ka dhacday koonfurta gobolka Mudug halkaas oo isaga kaashanayeen ciidamada xoogga dalka ciidamada kumaandoosta ee danab iyadoo ciidamada Galmudug ay hadda dagaal kula jiraan al-shabaab waxaana ujeedada duqeyntu ay ahayd in la ilaaliyo ciidamada qalabka sida ay geesiyaasha ah oo markaasi ku wajahan cadawga weeraradana si guul ah ayaa markaasi loo qabtay maadaama aysan waxyeelo soo markaasi ay waxyeelo soo gaartay rayid ah ayaa lagu yiri war saxaafadeed ay soo saartay ama ka soo baxay madaxtooyada maamulka Galmudug ayaa sheegtay in wasiirka amniga gudaha ee maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi uu hadda ku sugan yahay jiida hore ee ka go'an tahayna sidii wadida howlgalada ka dhanka ah al-shabaab si loo hubiyo amniga muwaadiniinta loogana hortago weerarada al-shabaab ay deegaanadaasi ka geysanayaan in ka badan 2 toddobaad ayaa howlgallo iyo dagaallo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta Galmudug oo isku dhinac ah iyo al-shabaab waxa ay ka socdaan koonfurta gobolka Mudug waxaana la sheegay in la wareegay deegaano dhowr ah oo al-shabaab ay horay ugu sugnaayeen isla markaana bulshada Soomaaliyeed halkaas ugu dhibaatay jireen dhanka kalena
وهدي أي نقول داوديال قيمها دمبي أوركي أنا وأسلسو قارني مدحينها دلك كيني أهورو كينياتا يا عرف كوات كي إني مركاسي سيدا أي دلكيسا وقو أنتهي إن حدوده سأو ودفاع الشيء كستا أو سوفر جليو وحول الدجنين وجدي حقوق وصل مجعابين أو شيء إني سن ما هذا الكان أو وجدي مرو بوقنا أي أهورو كينياتا ملكوت على الدجان كلامه وندو حدود كيني سومالي يا وحى وكون وحنا حسدي إن دلكيسا وصل مرنا بأقبل دورين عد كستا أو شيء قيب كمية أهل الكيسا عندنا كما أقبلينه inay sheegato lahaanshiyaha qayb kamid ah dhulkayna sida aan u xushmeynayno xuduudaha dalalka kale ayaan sidoo kale ka filaynaa in xuduudaheena dhuleed iyo badeed loo xushmeeyo ayuu yiri madaxweyne Kenyatta hadalkiisa ayaa la soo fasiray inuu yahay fariin uu dirayo Soomaaliya oo uu muran dhanka badda ah kala dhaxeeyo Kenya dhinaca kale waa dhanka kale Kenyatta waxa markaas oo ku taalo xuduuda Soomaaliya ayaa ah mid ad ka dhigteen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab halkaasi oo ay ka soo qaadaan weerarada ay ka fuliyaan deegaanada Lamu Garissa iyo Tanariifar daawadayaal warkii aad kala socoteen ka wararka subaxnimadan waa naga inta warkan kii saxiga intan dib hawada ka kulmi doono daawadayaasha aynu jecelnahay waxaan idin leenahay haddii ay tahay markii kugu horeysay aan soo booqato subscribe in ay noo saarto ayaan si xushmad iyo karaamo ay ku dheehantaa kaaga cusanaynaa sidoo kalena muuqaalka si share garay oo bulshada kale la wadaag si xogahan xasaasiga ah oo isugu jira xaaladda dalka ka hadlayo in aad markaasi bulshada la wadaagtana waa waxaan wanaagsan dabcan waa maasantiin daawadayaal